بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين عشركنا maanta wuxuu ku saabsan yahay nafaqada dhirtu u baahan tahay casharkii waa casharkii shanaad waxaan kaga hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo curiyaha la yiraahdo calcium oo ka mid ah curiyaasha lagama maarmaanka u ah dhirta iyo guud ahaan noolahoo dhan waayahay calcium naanaysteedu waa waa curiyaha labaatanaad ee kalgalka curiyayaasha calcium waa bir ka mid ah ururka labaad ee kalgalka curiyayaasha tiro atomkeedu waa 20 culays atomkeeduna waa 40 kaaftoonkeeduna waa 2 calcium waa curiya aan ka mid ahayn curiyayaasha dhex socda dhirta macnaha dhirta marka aan leenahay waxaan la jeednaa geedka macnaha geedka ee carradu ka soo nuuga kadibna waxa la geeyaa meelaha looga baahan yahay iyo qayb walba oo geedka ka mid ah marka uu dhex socdaa marka calcium waxay ka mid tahay kuwa aan sida aadka u dhex soconin ayay ka mid tahay geedka sidaa daraadeed astaamaha yaraantiisu waxay ugu horreyn ka muuqataa caleemaha cusub ee dhowaan soo baxay calcium dhirtuna waxay nuugtaa iyadoo ah ayoon togan waxtarka calcium waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa sameynta safiixada dhexe ama midha lamella wuxuu ka qayb qaataa sameynta iniyaha iyo firfircooneynta enzaymyadu waa isku dhis kiimikaad oo fududeeya falgalada kiimikaad ee ka dhacaya noolaha dhexdiisa gaar ahaan geedaha dhexdooda ka dhacaya wuxuu dhirta ka ilaaliyaa sunnimada ama kusmoobidda curiyayaasha culculus iyo saameynta sunta ah ee jurcooyinka saa'idka ah ee boron curiyaha boron la yiraahdo markii uu ku bato dhirta wuxuu leeyahay saameyn sun ah saameyntaas waxa ka ilaalinaysa ama yareynaysa calciumta midha lamella wuxuu isku dhajiyaa labada unug ee deriska ah tusaale ahaan fiiri sawirkan fiiri dhinaca bidixda ah seelkan hoose ama unugan hoose iyo unuga kore inta u dhaxaysa meesha iskaga dhagan ama iska haystaan ayaa waxa la yiraahdaa midha lamella marka calcium ayaa hawsha iyada ah mas'uulka ah calcium waxay ka qayb qaadataa yareynta khatarta jirada dhimashada darfaha ama laamaha ee ku dhacda tufaaxa iyo kansariga calcium wuxuu muhiim u yahay ubax saaridda geedku markuu ubax saarayo aad buu muhiim ugu yahay processka ubax saaridda sidoo kale wuxuu saameyn ku leeyahay socodka carbohydrate-ka ee dhirta macnaha saad ogsoontihiin carbohydrate-ka waxaa lagu sameeyaa caleemaha dhexdooda markii caleenta lagu sameeyo oo carbohydrate-ka la diyaariyo kadibna waxaa loo qaadaa meelaha loogu kaydiyo iyo seelasha kale si ay u isticmaalaan marka inuu ka taga caleemaha oo uu gaaro meelaha loogu talagalay waxaa qayb ka qaadanaya waa calcium marka aan fiirino bal astaamaha yaraanta calcium ugu horeyn astaamaha yaraanta calciumtu waxay ka muuqataa caleemaha cusub ee dhowaan soo dhashay caleemaha cusub waxay yeeshaan midab cagaar jaalle xigeen ah calcium yaraantu marka ay sii socoto ama ay sii siyaadana waxaa caleemaha ka soo baxa barbara dhintay waxayna u duumaan darfaha yacni darfaha hoose ama dhinaca hoose ayay u duumayaan ama caleenta u laabmaysaa marmarna caleemaha darfahoodu waxay yeeshaan laalaab sida hirarka oo kale yacni caleentii darafkeedii ayaa waxay yeelanaysaa laabmitaan sida zigzaaga oo kale ama sida hirka oo kale ah waxaa engega ama qalala halka laamaha iyo xididadu ka koraan macnaha geedku ama markuu korayo ama laantu ay korayso darafka ugu sarreeya ayay ka baxdaa oo caleenta cusub ka soo baxaysa halkaas ayuu ka qalalayaa sidoo kale xididkana meeshii ugu horreysay uu ka korayay ayuu ka qalalayaa astaamaha yaraanta calcium waxay si cad uga muuqdaan miraha waxaa miraha ku samaysma bara madow midabkoodu kafee yahay oo kakan ama adag haddii carrada lagu badiyo kushiimooyinka ama bacrimiyeyaasha potassium nitrate iyo magnesium nitrate waxaa suuragal ah inay ka muuqato dhirta astaamaha yaraanta calcium iyada oo ciidda ay ku jirto calcium ku filan
hadda sawiradan si fiican u fiiri waa mirihii iyo caleemihii oo ay ka muuqato yaraanta calcium calaamadahan ayaa ku dhacaya ama ka muuqanaya miraha waxaad arkaysaa mirihii oo barabara madow yeeshay oo adag sidoo kale waxaad arkaysaa yaanyadii oo ka dhimanaysa darfaha cashirkeena intaas ayuu ku ogyahay waadna mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu